الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan hambalyo iyo bogaadinba uga dirayaa dhammaanba shacabka reer Somaliland meel kasta ay joogaan, gaar ahaan shacabka iyo golaha guurtida baarlamaanka dhammaanba reer Somaliland. waxaan leeyahay hambalyo waa guul aynu wada filaynay, waa horumar la wada filayay, waa wax la sugayay in golaha guurtida wixii loo sameeyay baabay ka mid tahayba in golaha guurtida ee Somaliland ay horumar fiican ka gaadhaan khilaafka xisbiga kulmiye. waxa aan halkan hambalyo iyo bogaadin uga soo jeedinayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye, madaxweynaha iyo dhammaanba golayaasha qarankaba, iyo inta xisbiga kulmiye ee labada isku haysay arrimaha yareyska khafiifka ah, sida ay ku dhameeyeen iyo sida ay labada gruuba u ogolaadeen tanaasulka. waa la idinka filayay oo miday Somaliland ku nabad iyo caanamashay. waxa aan halkan hambalyo uga jeedinaya ciidamada qaranka, booliiska, militariga, gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha gudaha, kulli oo ka qayb qaatay arrimaha nabadgelyada, shacabka ka qayb qaatay nabadgelyada. waxaanan leeyahay horowada hayaanka, horowada weli inagama dhowa Somaliland bartii la fadhiisin lahaa, rakadii la dhigi lahaa weli maynaan gaadhin, laakiin wax yar baa inooga hadhay. rakadaas insha Allah raka khayr qabta ilaahay inooga dhigo. waxaanan halkan idinku salaamaya salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. insha Allah tacaala guul Somaliland.